بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بوندا وديال كسر دوادا وركة تلفزيون NTN ودبدا وركة TV NTN أتكون داوان دونتان نوحة وجوا وين وجانك أهل السنة أو شاعية عرنا يكدوني مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود قريقان صوماليات أو شاعية سرت قدم بيسال عقد قارن أرورنت فرماجة أوضل بدي wararkii u dambeeyay weerar dad shacab lagu dilay oo ka dhacay gobolka Sool qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaan warka RTN waxa kamid ah dad ku geeriyooday qarax ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala dalkaasi Colombia Ruushka oo soo riday diyaaradda siday hub iyo shixnad kale oo military qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka NTN TV isagoo faahfaahsan goor dhawaad daawataan ku soo dhawaada وهاجاك هجانك أهل السنة قبلة دحاء يا شيء إن مدحوينها عصوبة دلك الصومالية حسن شيخ محمود أي كدونا يا نينو دحدحادية أي سجى يمامل كجلمد أهل السنة يا سداد دي بلاد يقدم بيسي إسكو أرسل يسي ديجان كبهول وقوي كجبيجان مقالة دوسمرب كدب دجالك يكدعي بشي أكتوبر مقالة جرائل قبل كاسي قلقديو إلى كده ودو قدوميها جود أما هجانك جود أهل السنة والجماعة مع محمود حسن فارح أيها شاعيين إن في الصومالية أي كذا البدين أما أسو جديان إن يدحل حادثه هجانك أهل السنة إياه مدحض السريع دولة قبلات كجلمد إلى ورديدان أيها سيدا وكلا شيء يا إن هجانك أهل السنة أي كو أن دعونا يان إن عن صفاء صحة هين الله مري هنانكي لو قالوا وريجي مقالوينك أي كاري من جيران قرائل يدو سمرهيب taasi beddelkeedana ay doonayaan in laga hadlo arrimahaasi saamiga siyaasadna wax laga siiyo madaxa amniga siyaasadda ee Al-Sunna Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa toddobaadkii hore sheegay inaanay iyagu cidna weerar ku ahayn balse ay kaliya doonayaan in ay difaacdaan sharafkooda waxa uu sheegay in ay shirqool ay u maleegeen dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasina ay abuurtay dhibaato ka dhaxdhalata Ahlus Sunna iyo Galmudug si kastaba ha ahaatee baaqa Ahlus Sunna ee xilligan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Galmudug iyo Ahlus Sunna ay laba daraf kala taagan yihiin isla markaasna ilaa iyo iminka Galmudug ay baadi goob ugu jirto firxadka Ahlus Sunnadii dagaalka waagi dhaweyd looga itaal rooraaday قريقان مختار نور oo ka hadlay lacagta qaaran aruurinta ay loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in guriga Farmaajo loo dhisayo sirta ka dambaysa ay tahay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in uu ku hulaabo ama ku qariyo lacaga oo hore u dhacay ama hore u boobay ayuu yiri taas ayuu doonayaa in uu kaga dhigo in uu soo marsiyo dadka jeebkooda isla markaasna waa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya la xisaabtamaa wuxuu intaasi ku daray in qorshahaani ay soo baabileen koox uu ku tilmaamay CBB ama cayayaanka baraha bulshada kuwaasi oo qaab kooxeed uga dhex abaabulan baraha bulshada isla markaasna ku taageeri jiray madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan weli wax jawaab ka bixin lacagahaani bariyihii u dambeysay lagu dhex aruurinayay koondooyinka baraha bulshada waxayna dadku aad u hadal hayaan lacagta qaran aruurinta ay madaxweynaha hore ee Soomaaliya loo sameeyo ma dhicin weli madaxweynaha xilka ka degay in guri loo dhiso balse midani waa qaab cusub marka loo eego hanaanka ama taatikada kooxda Farmaajo ay adeegsanayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xilliyadii u dambeeyay sheegi jiray in hantida qaranka uu iska dhowray balse waxa moodaa imika in si dadban hantida qaranku ay u soo galayso maadaama dadka shacabka lacag laga aruurinayo madaxweynaha Soomaaliyeed in loogu dhisay guri la doonayo taasina xilligan ay suurtagal ka ahayn ka dhacayn dadka Soomaaliyeed hagaag wali waxaad nagala socotaan NTN TV warar dheeraad ayaa ka soo baxaya maleeshiyad hubaysan oo saacadihii la soo dhaafay weerar ku qaaday dad shacab oo ku sugnaa duleedka degmada Boocame ee gobolka Sool waxaana weerarkan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
weerarkan oo si gaar ah uga dhacay baadiyaha degmada Boocama ayaa waxaa lagu dilay 2 ruux oo sida la sheegay walaalo ahaa isla markaana waxa uu dhaawac ka soo gaaray weerarkaani nin kale oo la sheegay inuu goobtaasi ka agdhawaa ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa halkaasi ka wada howlgallo ay kooxihii dilka geystay ay ku baadigoobayeen iyaga oo xiisa dejin ka sameeyay halkaasi wargeyska El Timbo ayaa sheegay in 7 qof ay ku dhinteen kadib markii ay miina ka qaraxday goob dhuxusha lagu qodo oo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi Colombia wargeysku waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta ay xaqiijiyeen dhimashada 7 qof kadib markii uu qarax ka dhacay goob dhuxusha laga qodo oo ku taala waqooyiga Sander ee dalkaasi Colombia samata bixiyaasha ayaa hadda baadigoobaya 8 kale oo macdan qodayaal ah kuwaasi oo ku xayiran goobta qarax uu ka dhacay waxaana ilaa hadda lagu guuleystay ilaa dhowr qof in laga soo saaro halkaasi oo ah goob macdanta laga qodo una si lama filaana qaraxu kaga dhacay Ruushka ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad nuuca xamuulka ah oo laga leeyahay dalka Ukraine taasi oo siday hub iyo saanad kale oo military wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradda xamuulka ah ee Ukraine lagu soo riday meel u dhow dekada Odessa ee dalkaasi Ukraine Moscow ayaa sidoo kale sheegtay inay weerar gantaalo ah ku qaaday dhowr baltilmaameed oo ay ku jireen xarumo lagu tababaro ciidamada madaafiicda Ukraine oo ku taala Indastskova oo ku dhow Sami Ruushka ayaa sheegay in macallimiin ajaanib ah xaruntaasi ay ka shaqeeyaan afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka Igor Kashkovka waxa uu sheegay in weerar dhinaca gantaalada ah ciidamadoodu ka fuliyeen lala bartilmaameedsaday ama lala beegsaday bartilmaameedyo ay ka mid yihiin fariisimo ciidamada Ukraine iyo xarumo ciidamada Ukraine lagu tababaro iyo sidoo kale xarumo waaweyn oo kaydka ah isla markaana ay halkaasi ku baabi'iyeen saanad military oo aad u xoogan dawladda dalka Ruushka waxa ay weli sii wadaa gulubkii colaadeed ee ay ku qaaday dalkaasi Ukraine ayaa imika waxa ay ku jirtaa sidii ay hubka aadka wax u gumaada uga soo aruursan lahayd dalalka dariska ah iyo dawladaha kale ay xulafada yihiin NTN TV